waxaa tuulada Gingo oo magaalada Qalaaliyo garabka ku haysa maanta lagu caleema saaray ku-xigeenka gudoomiye xaafadeedka xaafadaasi ee Gingo location waxaana ku-xigeenka gudoomiye xaafadeedkaasi lagu magacaabaa Fayzo Cabdinaasir Xasan. Fayzo xafladda caleema saarkeeda waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ammaanka bariga Mandera oo uu hogaaminayay gudoomiyaha ammaanka bariga Mandera Mr. Solomon Chepton waxaana gudoomiyaha uu aad u la dardaarmay Fayzo Cabdinaasir Hassan. Kwa mambo ya kazi xagga shaqada wengi wanataka lakini nafasi ni moja. Dad badan ayaa raba lakini nafasi hal eh. So mimi nataka niwaombe watu wa sehemu hii ya Gingo. Dadka Gingo waxaan inka codsana inka bariya. Kwanza baada ya sisi kuinstall huyu assistant chief leo. Markii assistant chief kan had aan caleema saarnay. Sasa ni wajibu wetu kumuunga mkono atuhudumia. Idinka reer Gingo datiin idinka ayaa idin jirtaa gabadhan inaad kaalmaysiin inay idin shaqaysiin. Kwa sababu bila ya ushirikiano wenu itakuwa ngumu kwake kufanya kazi. Illa idinka la shaqaysiin kulligeed waxba ma qaban karto ma shaqayn karto. Na mimi najua mahali wa mama wako. Meesha anina waa ogahay meesha ay maamayaal intaan dhan ay joogan hakuna kitu itaharibika. Wax halaaba male. Na mimi najua mkishirikiana na wazee wengine wamekuwa kazi kwa muda mrefu. Haddii duqaalkan kale oo shaqada horaan ku soo jiri aad isgacan qabsatiin kazi yako itakuwa rahisi. Shaqadaadana waa fududaani. Ya pili, midda labaad, zingatia zile sheria ambazo inaangazia mambo ya kazi ya chief na assistant chief. Shaqadii assistant chief loogu tirgalay ku taagnaw. Tuko na act ya chiefs ambayo imetayarishwa. Act sharci chief qabna oo la diyaariyay. Alafu tuko pia na National Government Coordination Act ambayo ilitayarishwa. Sharciga National Coordination dawladda sara sharcigeeda yaal. Tuko na katiba yetu. Sharcigeena Kenya yaal oo nolol. Hiyo yote ukifuata hautaenda nje. Banaanka ma aadaysid. Waxa kale oo dardaaran u soo jeediyay Fayzo mas'uulkaani oo lagu magacaabo Xuseen Weytaan oo qayb ka ahaa xafladaasi oo lagu maamuusayay caleema saarka gudoomiye xaafadeedka ee xaafadda Gingo Fayzo Cabdinaasir Xasan. in xaris badan tahay raggan way kan xaris badan tahay gabadha inaad la shaqaysaan ayaa la rabaa inaad gabadha la shaqaysaan ayaa la rabaa gabadha waxaan ka bariyaa maamayaalka inaad si fiican ula fadhiisata oo si fiican ula shaqaysa wixii oo awoodood u leedahay wixii u soo dhicin karta oo dawladdaas ugu soo dhicin karta inaad u soo dhiciso maamayaalka masaakiinta. Fayzo Cabdinaasir Xasan oo wajigeeda laga dareemayay farxad iyo reyn ayaa dareenkeeda farxadda la wadaagtay warbaahinta. Magacaygu waa Fayzo Cabdinaasir Xasan reer Gingo meeshaan ku dhashtay assistant chief keelay maxalli jirwa dadka dumarkina wax qabto qof walba wax qabto dadkayga la ku nool meeshaan qof walba meesha joogana cadaalad ugu shaqeeyo oo si wax walba karankayga u qabto gabdhaha siiba dumarka lagu qasbaayo inay iskuulka ka baxaan oo guurka xalli jira lagu qasbaayo saan amal ina idinkana gabar walba tiina inay wax idin noqoto wax idin tarto oo maxalli jir wax idin qabtaan insha Allah dadkayga ayaa wax ku ay gacan wada jira wax qabsadaan. Waxa ugu dambeyntii Fayzo aad ugu hambalyeeyay ehelka iyo qaraabada waxaana hambalyada ka marnayn ka soo qayb galayaasha kale ee xafladeeda caleema saarka ah. Aamin Sheekh Xuseen Cali baa leedahay Gingo baan deganahay gabadhayda waan u hambalyeynayaa ilaahay meel san ha mariyo dadweynaha ayada xigta ilaahay meel san ha mariyo mideeda kala dadka idil bay jiif u wala tahay wixii meelaha egaarkan degano ilaa Mandera bay jiif u tahay meel abshire Allah ha mariyo. Waxaa la yiraahdaa Faadimo Maxamed oo reer Gingo ah gabadhaan reer Gingo maanta nasiib ay u yeeshtaan in chief loo caleema saaro aan u mahad celinaynaa marka waana ku mahadsan yihiin waa ku mahadsan dawladda noo keentay inay macna bil ama kul ay ku faraxsan yihiin maanta gabadhan la doortay ilaahay noo barakay hambaliyayna maanta maxaan ka soo qayb galnay caleema saarka Fayzo Cabdinaasir assistant chief Gingo sublocation maxad celin u dirayaa reer Qalaaliyo ilaa reer Gingo ilaa reer Beela oo xafladaas ka soo qayb galeen gabadha Fayzo Cabdinaasir ilaahay maxaan ugu rajaynaynaa inuu ilaahay ku ceeb asturo oo baraka iyo barwaaqo ayaan u rajaynayaa halkan maxaa kaloon
ugu mahadcelinaynaa muxushmuwa Xuseen Weytaan oo waqtigiisa iyo timekiisa noo soo burburi ka soo qayb galay caleemasaarka assistant chief Gingo Faisal Cabdinaasir waqtigiisa dhan u soo burburi muxushmuwa waa maasan tahay waan ku faraxsanahay gabadhayna oo maanta noqotay chief noqotay aad baan ugu faraxsanahay gabadhayna oo maanta chiefnimo xiratay aad aan ugu faraxsanahay inta dambe inay xirataan rajaynaynaa insha Allah maanta waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabad aan ka gabadheena Faisal Cabdinaasir aan ku caleemasaarayna gabadhii ugu horeysay oo koona tribe oo chief ama loo caleemasaara ama chiefnimo mas'uulnimo la siiyo gabadhii ugu horeysay waa ku faraxsanahay reer Qalaaliyo iyo reer Guduudiye iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay waa u mahadcelinaynaa gabadhan waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay maartay hawsheeda u fududeeyo tii dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda wax u qabatay Ilaahay ka dhiga mahad gaarna waxaan u celinaynaa Xuseen Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen Weytaan oo asagana ka soo qayb qaatay kamid ahaa marti sharafka meesha lagu casuumay ama munaasabada kamid ahaa waa u mahad celinaynaa wabillahi tawfiiq waxaan mahad u celinaa Ilaahay ثم waxaan u mahad celinaa inta ka soo qayb gashay oo Gingo gabadhii assistant chief ka Gingo sublocation oo nagala soo qayb gashay reer Mandheera reer Qalaaliyo Guduudiye meel walba inta nooga imaaday uu ka mid yahay muxushmuwa Xuseen Weytaan Faisal Cabdinaasir Xasan waxay noqonaysaa gabadh aad u daayar oo loo dhiibo xilka ku-xigeenka gudoomiyaha xaafadeedka xaafadda Gingo kadib markii uu ka howlgabay ninkii horey halkaasi maamuli jiray waxa kale oo ay Faisal noqonaysaa gabadha labaad oo xilkaasi qabata ee bariga Mandheera ka soo jeeda waxaana ka horeeyay Leyla Kuulow Maxamed Sheekh oo iyadana ah ku-xigeenka gudoomiyaha xaafadeedka xaafadda Kamoor ee magaalada Mandheera Ibrahim Happy Radio Midnimo Mandheera